mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen isagoo soo dhoweeyey dadaalada dib u heshiisiinta ah ee uu wado guddoomiyaha golaha shacabka in laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni midnimo saraynta dastuurka iyo xeerarka dalka shabaaba soo dila asaguna shabaaba ee shabaab kale soo dila ee soo gala lacag inaan siinayno. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوالا وركا دوبيا ميديا ام دوبيا وضبضا إذين ودنا كداود دونتا بران كلنا سوشيال ميديا وحا كاميدا maamulka koonfur galbeed iyo guddoonka golaha shacabka baarlamaanka oo ka gaaray khilaafkii ee doorashada ka jiray waqtiga la qabanay inay shaaciyeen warbixin la xiriirtay waa idiin soo gudbin doonaa sidoo kalena guddoomiyaha gobolka hiiraan oo u ballan qaaday shabaabkii soo dilay shabaab kalena ka soo goostana siin doono in ka badan 25,000 oo dollarka Mareykanka warbixin la xiriirtay waa idiin soo baahin doonaa qodobada kalena waxaa kamid ah deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe oo in ka badan kontameeyo dagaalyahano qawaarida gobolkeeda sii dhacay lagu dilay iyo sidoo kale hub iyo saanad laga furtay waa halkay deegaanadaasi qayb ayay ka tahay warbixinada ay soo gudbin doonana waxaa kamid ah shabakad kooxda qawaarida al-shabaab ka tirsan oo maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunno kala duwan ku riday warbixintaasina waa idiin haynaa qodobadaas iyo qodobo kale oo idiin sii qarnay anigoo Musa Maxamed Cali kaaga soo jeedinayo barahan kulena social media ee MDobio barteena Facebook iyo Dobio Media barta kale YouTube-ka ee u diyaar garooba ayagoo sii dhameystiran maamulka koonfur galbeed muddo kordhintii halkii sanaba uu rabay madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis maxamed laftigareen oo guux xoogan oo ka jiray ayaa waxaa laga gaaray xal weyn kadib maanta markii la soo gabagabeeyey kulamadii wada tashiga ahaa ee halkaasi uu ka socday oo isla markaasina garwadeenka u ahaa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe waxaana kulamo gooni ah magaalada Baydhabo iyo sidoo kale kan xudur ay ka yeesheen xubnaha siyaasiyiin oo wafdi uu horkacayay guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe iyo sidoo kale mas'uuliyiin heer maamul goboleed iyo sidoo kalena heerka degmadaasi odayaal dhaqan ee muddooyinkii ugu dambeysay Baydhabo iyo xudur ay kala socday balse maanta ayaa xubnihii labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaan doorashadooda halkaasi ay tahay xubno ka tirsan oo Baydhabo ku sugnaa guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Madoobe iyo Cabdicasiis Laftigareen waxay isla gaareen heshiis isla markaasina ay sheegeen isla markaa warmurtiyeedkooda ee ku shaaciyeen in bisha soo socota horaanteeda la qaban doono shir dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda koonfur galbeed iskugu imaan doonaan isla markaasina la qaadi doono tallaabo ku aadan dhanka iyo weliba xasilooni siyaasadeed oo loo wada dhan yahay warmurtiyeedkii soo saareen waxa uu ahaa sida tan sanadkii kulamadii uu la yeeshay guddoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxay isla qaateen in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha culimaawidiinka ganacsatada dhalinyarada iyo haweenka si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuud ka yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqeynta hay'adaha dawladda ee labada heer federaal iyo heer dawlad goboleed si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool ahna si loogu xoreeyo dalka kooxaha qawaarijta 3 in laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni midnimo saraynta dastuurka iyo xeerarka dalka 4 in sida ugu dhaqsiyaha badan guddoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dardalgelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed furitaanka shirka waxaa loo asteeyay 5 bisha Janaayo 2023 kaas oo ka dhici doona magaalada Baydhabo degmooyinka Ruurmurgood iyo Aadan Yabaal deegaano hoos tago ayaa maanta waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garabsanayo dadka deegaanka iyo kooxdii gobolkeedu sii dhacay ee qawaarijta al-shabaab
dagaalkaasi oo ahaa mid berber socotay duqeymo ayaa waxaa kooxda khawaarijta al-shabaab looga qaarajiyey in ku dhow kontameeyo dagaalyahanada diinta sida qaldan ay ugu sameeyeen deegaanka daarunaciim oo hoos tagto degmada ruurmurgood ayaa waxaa halkaasi saakay ay galabta oo ka dhacay dagaal xoogan islamarkaasina ciidamada dowladda oo dadka deegaanka kaashanaya weerar halkaasi ay ku qaadeen ayadoona halkaasi lagu qaarajiyey maleeshiyaad fara badan oo kooxdaasi ka tirsanaa islamarkaasina hub iyo saanad ciidan kalena laga furtay deegaanka ama degmada ruurmurgood deegaanka hoos tagay alkoosarna waxaa galabta casarkii iyo sidoo kale maqribtiina halkaasi fariisimo ay iskugu aruursanayeen kooxda gobolkeeda kasii dhacay shabeellaha dhexe iyo deegaano kale oo fara badan ee khawaarijta al-shabaab lagu sameeyey weerar dhanka hawada oo saaxiibada caalamiga ah duqeymo ay ka geysteen wararku aanu helayno ayaa waxay sheegayaan in halkaasina sodomeeye kalena ay ku nafwaysay kooxda khawaarijta ee gobolkeeda sii dhacayo maalmihii ugu dambeeyey ayaa gobolka shabeellaha dhexe waxay yihiin deegaanadii farikutiriska ee hoodka ahaa ay kaga gembanayeen in ay islamarkaasina laga sii farmoojinayo waxaana wararka caawa fiidkii horena laga helay degmada ruurmurgood oo halkaasi degmadii ugu dambeysana ee caawa agabkooda kasii aruursanayaan dhanka kalena gobolkaasi hiiraan guddoomiyaheeda hiiraan cali jeete oo maanta la hadlayay ciidamo ka tirsan dadka deegaanka islamarkaasina ee dagaalka kooxda khawaarijta al-shabaab kula jira iyo sidoo kalena ciidamada dowladda soomaaliya dhiirigelin u sameynayay ayaa waxa uu sheegay in kooxda khawaarijta al-shabaab qofkii ka tirsan uu soo dilo mid kale oo shabaab ah ay siin doonaan lacago fara badan oo in ka badan 25,000 oo dollarka Mareykanka shabaaba soo dila asaguna shabaaba ee shabaab kale soo dila ee soo gala lacag inaan siinayno ama anti weyn kala soo goos kii hore waxaan gashan kuma bixinaynaa Soomaa 10,000 oo dollar aan bixinaynaa maleeshii shabaaba maleeshii kale shabaab haduu soo dilo ee uu ka soo galo hadduu kuwan urgida ayaga u madaxa sida hebelka dheeriye hebelka karasay iyo hebelka iyo hadduu soo dilana ma bal heli karaba lacagtaan hadduu dhiibnaan u saddex jibaarinaano أنا على جال على شيء لا أجمع هيا يدتكين يسويدي أنا بنت واحد يقول راعي مجرم به وحنا يلي ما بيجري أنا هذا مركون قفكي شباب أو قف كلو شباب بدله أيام اللي ولا نعلو عرري بهالشيء أنا نقودي أو كله بلا عادي ما قصيسو هو يدي ما قصيسو وويل كله ما قصيسو وإسلامتي ما قصيسو أون اللي أسيء قصيسو قفك قصيسة بكأج أنا يقول كان ربع قنقار هذا نقول دم إسكو دم ميانا أسوون وحوق يستولي أنا وحنا جيستان له هذا الإسلام أنا وانا مقتدي كوا الشباب كا ويلسا يرير الصوماليين يجود عاديستي إني بنايستان بروفيت كل راديان ورا الكوا دي العالم إنسان سودي له العقبان ونسيننا عفس نواتيني مدحوني الجمهورية يدين بلغ هذا عفسك أنا العقتي عم بحنايا ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta shabakad kooxda khawaarijta al-shabaab ee ka tirsanaa ku riday xukuno kala duwan kooxdani oo ahayd shabakad ku holaneed dilka dadka muslimiinta Soomaaliyeed iyo sidoo kale dhaca iyo waliba ka beesheegada diinta islaamkeena suubaneed ayaa maanta waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku riday xukuno xubnahaasi shabakada ahaa qaswadayaasha ayaa waxay ka koobnaayeen kuwa madaxa maaliyadeed iyo sidoo kale madax caafimaad iyo sidoo kalena dhagar qabayaal kale iyo xubno kale oo darawal u ahaa waxaana ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya 17 December sanadkani ay gacanta ku soo dhigeen ayagoo ku hoolanaa dhanka iyo waliba dhibaateynta bulshada Soomaaliyeed
waxaana maxkamadeyntooda dhegeysiyo kala duwan ee soo martay iyadoona ugu dambeyntii 10 bishaani la dhageystay habraacyadii maxkamadahana ee soo dhameysteen ayaa maanta mar kale ku dhawaaqista xukunkooda loo fadhiistay waxaana xubno ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee halkaasi cadeemihii ay ku soo gudbinayeen ugu dambeyntiina guddoonka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee xukun dil ah ku riday xubno ka tirsanaa kooxdaasi ayadoona sidoo kale halka kuwo kalena xabsiyo dhaadheer iyo xabsiyo kale oo sanado ah ee ku riday halka kuwo kalena ay siisay xorriyadooda maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe kooxda khawaarijta al-shabaab ay ka soo hormuuqanayeen eedeysanayaal markii dambena xukunno dil toogasho ah waajibkooda marsiinaysa iyadoona dhansiinaysa falalkii ee dhiigga muslimka Soomaaliyeed ku daadi jireen la dareensiinayo intaasina ayaanu ku dhaafeynaa warbixinadeena iyo wararkii aan idiin soo gudbinay tani mar kale intaan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo iyo kulan kale oo xiiso leh